بعد حمد الله waxaanu mahad celinaynaa maamul iyo madaxba jaamacaddan dadkii ka mas-uulka ah intii aasaastayna allahu naxariisto geeriyootay intaa kadib darsiga la tilmaamay inaan ka warrama waa mas-uuliyadda uu leeyahay المثقف المسلم aqoon-yahan ama waxgarad ama indheergaradka qofka muslimka ah iyo kaalinta uu ku leeyahay islaamka faafintiisa iyo difaacidiisa. aqoon-yahanku ama intellectualka qofka lagu tilmaamayo ama indheergaradka lagu sheegayo waa qof aqoon leh, hadday tahay aqoon dhaqan iyo af iyo diin iyo culture iyo waxa uu ka soo jeeda ah, iyo hadday tahay aqoonta bini aadamka mushtaraga ku iyo wadaago ee kale ummadaha ka dhaxaysaba. waxaan rabaa darsiga inaan koobo, sida awgeed tacriifta lugawiga ama musطalaxaadka ama terminolojiga aadanuhu isticmaalay tirada badan leh, gaar ahaan akademigu tacriifta ay isticmaalaan waan isdhaafaya. si wakhtigaan u ilaaliya waxaan u gudbayaa aqoon-yahanka aynu rabnaa waa kuma, waa sese, waa maxay kaalinta bulshada ee laga sugaya. aqoon-yahanku kow waa qof leh kayd aqoomeed, rasiid macrifiya, ha ahaato aqoonta dalkiisa iyo dadkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa iyo culturekiisa iyo identitygiisa, haybsoociisa, ama ha noqoto aqoonta kale akademiga ee bini aadamku uu bartee waxtarka nolosha u leh ama se fudaydisa qaabka loo noolaanayo. idan waxaan leenahay kow waa inuu yeeshaa rasiid macrifiga ama kayd aqoomeed. aqoon-yahankaa rabnaa laba waa inuu yeeshaa baynu leenahay qudra caqliya fi الnaqdi wالtaxliil, critical analysis. waa inuu noqdaa qof wax xufi kara. aqoonta nin waliba maanta dunida taalla nin waliba intiisu ku darsadaa. ini waa xaqiiqo, inna waa dadku dhaqamada iyo kaljarada iyo afka iyo hidiyo dhaqanka ay leeyihiin, waa lagu barxaa. waa yarta inaad hesho wax saafiya oo barax tiran oo aan wax kale ku qasnayn. si awgeed waxaan leenahay aqoon-yahankaan rabnaa waa qof aqoonna wata, critical analysisna samayn kara, qof samayn kara naqdi ama wax taxliilin kara ama af soomaali hufi kara aqoonta. oo hufitaankaasi wuxuu keensanayaa dee inaad ishi iyo baalka ka tirtid, ka reebtid, oo wixii manfaca leh adduun ama aakhiro inaad qaadatid. waxaan kaloo leenahay aqoon-yahanku shardiga saddexaad aynu u tilmaamayna waxa weeyaan leadership attitude inuu yeesho, oo qof tawjiihin kara bulshadiisa iyo ummaddiisa, irshaadin kara ama toosin kara, jidka saxdaa u tilmaami kara waa inuu noqdaa. hadduu saddexdan shay isla helo waa hoggaanka aqoomeed waxa laga rabo. inuu aqoontii wato, inuu wax xufi karo, iyo inuu leeyahay awoodda ah in bini aadamka la hogaamiyo oo samahana lagu hogaamiyo, xumahana laga reebo. qofka intaa helay waa maxay mas-uuliyadda bulshadiisa ka saaran, ama se diintiisa ka saaran, ama se afkiisa iyo dhaqankiisa iyo hiddiisa ka saaran.
waxayna qofkaasi waa qofka abuura ama sameeya wacyiga caamka ee ummaddu ay leedahay. ummad kastaaba wax collective oo ka dhaxeeya bay leedahay, bulshadoo dhan ay leedahay oo wadaagto. waa qofka abuura bay leedahay ka sinaacu ra'yi aw ra'yi alcaam lilumma aw alwacyi alcaam, waa qofka sameeya. waxay leedahay waa qofka ilaaliya muqadasaadka ay ummadi leedahay, waxyaaba ay u baahan tahay inay ilaashato waan cidi kaga xadgudbin. waa qofka bulshada u tilmaama marjiciyaadkeeda iyo meelaha ay rabto inay cuskato oo markaa u noqda wax kasta meesha ay ula noqonayso. hadaabuu qofku muslim yahayna waa kitaab iyo sunne waxa uu ilaalinaya uu rabo in dadku ula noqdaan. mas-uuliyaadkiisa waxaa ka mida baynu leenahay waa inaaratu ariiq. dadka waa qofka toojka u sidee wax u ifinaya, qandiilka bulshadu ay wax ku aragto ama faynuuska ay wax ku aragto oo ah waxa loo ifinaya waa mushkilaadkeeda iyo dhibaheeda say uga bixi lahayd, mustaqbal san oo fiican sidee u gaadhi lahayd. waa qofka taasi u ifinaya. waxaan kaloo leenahay mas-uuliyaadkiisa waxaa ka mid ah hadduu qofkani mas-uuliyaddaa qaato inuu dadka diintooda ilaaliyo, dhaqankooda inuu ilaaliyo, afkooda inuu ilaaliyo, dadnimadooda inuu ilaaliyo, mushkilaadkooda inuu xal u raadiyo, mustaqbalkooda wuxuu ifin karo inuu ifiyo. hadduu qofku taa qaatana waxaa hubantiya inay ka hor imanayso taxadiyaad tiro badan leh, challenges, caqabado waaweyn baa ka hor imanaya. caqabadahaasi ha noqdaan caqabadaha bulsheed oo bulshadu culture bay leedahay. culturekaasi wuxuu u baahan yahay inta la hufo, intiisa sanna in la xejiyo, intiisa liidatana in laga tallaabsado. hiddahay dadku leeyihiin wuxuu u baahan yahay in la eego oo la eego maxaa casriga kan dadka iyo noloshooda anfaco la socon kara, maxaase wakhtigiisii aan la joogin. bulshada markaa inaad dhaqamadeeda ka hor iman kartid ama hufi kartid waa challenge. wuxuu kaloo u baahan yahay inuu waaqaca siyaasiga ka hor yimaado, waayo dadka politicianska ah in badanoo ka midii waxay xeeriyaan maxaa iyaga dantooda siyaasiga ay ku jirtaa, suu kursiga ugu soo noqon lahaa ama suu u ilaashan lahaa ayaa in badanoo ka midii xeeriyaa. laakiin qofka aqoon-yahanka ahi wuxuu isagu xeerinayaa maxaa bulshada dani ugu jirtaa, maxaa wanaagga bulshada ah. taasi waxay keensanaysaa conflict of interest. saa daraaddeed challenge buu u baahan yahay inuu geli karo. waa qof baynu leenahay xataa nolosha caadiga wax badani ka hor iman karayaan. dunida aynu maanta joognaana waa duni isu furantay. waxay yidhaahdaan aadanuhu waagii hore markuu dagaalamayo qalcaduu samaysan jiray uu isku xeero. qalcadda iyo xusuuntaasi waxay ahaan jirtay inay bini aadamkan faraska wata iyo waxa kan inay iska xejiso. technologygu markuu horu maray waxaa fududaatay markaa in la dumin karo. awalan waxaa soo bilaabmay madaafiic oo derbiyadan lagu garaaco lagu dumiyo. aaniyan waxaa soo bilaabmay in xagga sare loo duuli karo oo maanta duwalku waxay u kala xoog badan yihiin marar badan siday cirka ugu kala xoog badan yihiin. waayo qalcadaha ummadahoo dhan baad rabtaa inaad jebiso ay isku difaacayso. marka la eega bay yidhaahdeen xagga dhaqamada iyo diinta iyo afafka iyo waxa kanna iyona dunida weerar cusub baa ka bilaabmay. adawaadka la adeegsanayaana wuxuu yahay internet iyo tv iyo
adawaat litisaal waxyaabahan communicationka cusub iyana waxay jebiyeen bay leeyihiin xayndaamadii dowladnimo iyo guriyeed iyo dad lahaayeen bay jebiyeen saa daraaddeed qof baa hagaya dunida dabadeeda fadhiya ayaa aragtiyihiisa ku hagaya oo aan xayndaab laga xidhan karaaba aanu jirin gurigaaga gudihiisa ilmaha yare jooga hadduu nadka galo ma fi dunya aakhiru dunya waxa yaaliya waxa lagu hayaa afkaariyo wax walba qolkuu jooga daa inay dowladdu celisay in xuduudda lagu joojiyay in dad xuduud xidha suurtagalba ma ahe guri inaad xidhataabaan hadda suurtagal ahayn waxaa la jebiyey hadda xuduudda qolkaaga hurdada jajaban saa daraaddeed waxay dhahaan addunya kullaha makshuufa laan globalizationka ay sheegayaan waxa weeyaan dunidu maanta way qaawantay ninna nin wax kama qarsan karo waxay loo soo banbaxay markaa almacraka alkubraa bay yidhahdaan baa caalamka maanta ka taagan oo ah afafka in la tirtiro dhaqamada in la tirtiro diimaha in la tirtiro qaabka loo nooliyo in la tirtiro in cidi xoog badato wax walba dunidu maanta waxay isku dayaysaa dhadhan qudha inay wada yeelato saa daraaddeed baa tv-ga waxaa ka socda qof kijo fadhiyo oo tilmaamaya saa wax la isugu qaso xataa dhadhanka waxaa la rabaa in la wadaago oo aanad keligaa yeelanin intaadaad walaaqan jirtay sidaa ogeed dunidu waa laysu furay marka laysu furayna nin waliba ninbe ceesaantii ceelkeed nin waliba wuxuu haystuu banka la imanaya aqoon-yahanka waxaynu ka rabnaa markaa ma yahay kii dhowri karayay waxeenna ee dadkeenna ilaalin karayay ee difaaci karaya ee ah jundiga ama askariga dhabta ee maanta xuduudda askarigii joogay laga soo tallow iyo ciidankii milatariya wixii la dhigtay oo dhan waxaa laysku haystaa waa cuquusha bini aadamka hadda awtaantii iyo guryihii iyo waxaa laysla dhaaf caqligaaga ciddii degi lahayd baa la isweydiinayaa marka aqoon-yahankeennu ma yahay mid ilaalin kara ummadda cuquusheeda mid ilaalin kara ummaddu siday u fakerayso mid ilaalin kara ummadda hantideedii ahayd diin iyo dhaqan iyo af iyo waxay lahayd aqoon-yahanku markaa waa inuu qudwa lilmujtamac noqdaa baynu leenahay awal shay laga rabo waxay culammadu yidhahdaan afkaartu ma suurtagal aha inay si fiican u faafto haddaanay cid matasho lahayn waa inay wax practicala waa inay yeelataa waaqicay ku suganto bini aadamku waa indha ku garaad leh wanaagga aad sheegayso isagoo kaa muuqda waa inuu arkaa qofka walidalik baa ilaahay qur-aanka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay doortay oo rasuulkii dadka laga dhex doortay waxyigu ku soo degayay ah ayaa la yidhi dadaad ku dayatana waa lagu siiyey inta ilaahay ambiye soo taxay fii suurati alancaam ayuu wuxuu leeyay ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi kuwaasi baa ilaahay yidhi intuu rusul magacyadood soo sheegay kuwaasi waa kuwii alla hanuuniyey ee fabihudaahu muqtadi hanuunkooda ku daya baa la yidhi aadanuhu waxay yidhahdaan marka hadduu mabaadi' matelayo kama maarmo mabda'a cid tusaale u ah xataa bay yidhaahdaan aadam nebi aadam tusaale u baahday se cidi kama horraynin isagaa tusaale la isku siiyey markaa intaanu adduunka imanin inta janno la geeyey baa training la siiyey dabeetana la yidhi dhirtaaya waxaa ahaa cunin farsamadaa markii uu ku tababartay kadib baa dunida la keenay waxaan leenahay marka horeba tan baa loogu sii talagalay ilaahay markuu abuurayay fii suurati albaqara muxuu ku tilmaamay waxaan abuurayaabaa ilahay yidhi khaliifatun fi lard innii jaacilun fi lardi khaliifa waa aayaadkii iclaamka loogu sheegay ee malaa'igta in bini aadam la abuuri doono ilaahay wuxuu u sheegay in dhulka khaliifo la geyn doono laakiin aadan markii la abuuray jannaa la geeyey waayo aadan cid hore ku daydo ma haysto isagaa la isku siiyey tajribada markaa bal trainingkan gal markaad ka baxdo dan nolosha waajih markaasi baa la yidhi waxaan leenahay aqoon-yahanku markaa waa inuu ummadda qudwa u noqdaa haddaad noqoto qof afka ka hadla waxan baa fiican kan baa wanaagsan kan baa wanaagsan adnaa tuug laga soo gooyay tahay waxba sheegi maysid warkaagu socon maayo warka soconaya waxa weeyaan warka qofka sidaa uu yahay mid isaga ay ka muuqato
سأوجد حلنا قويها كأنه وحنا كربنا laba sharti baa laga rabaa bay yidhaahdaan qofka aqoon-yahanka oo xooggan macrifa iyo mowqif bay yidhaahdaan aqoon iyo mowqifuu istaagi karo qof meel loogu soo hagaaga leh tusaale wax ku ah oo waxa uu sheegayo bini aadamku uu kaga dayan karo imka dadka waxaad arkaysaa siyaasigu wuu hadlayaa wuxuu ka hadlayaa dowladnimo wadaad dadku way hadlayaan waxay ka hadlayaan corruption aqoon-yahanku wuu hadlaya waxbaa laga hadlaya waaqiciina kama jiro maxaa si ah innagaan moodalkii ahayn innagaan ahayn kuwii lagu dayanayay dadku tusaalihii baanu haysanin dadku hadduu madax arki lahaa moodal ah oo kuwii qudwada ahaaya kuwii lagu dayanaya uu ku dayan lahaa waxay idhahdeen cumar bin alkhataab baa waxaa loo keenay markii bershiya la furtay dee boqortooyooyinku waxay dahab iyo alaab iyo wax sideen baa la keenay markaasuu wuxuu yidhi ummadda kaa keentay alla waan ku dhaartay inay aamintay ummad ammaano leh dabeetana cumar bay ku yidhaahdeen haddaad daaqi lahayd iyoba way daaqi lahaayeen markaad dhowrsatay ayay dadkuna dhowrsatay markaad adigu dhowrsataa dadkuna dhowrsatay waxaan leenahay marka aqoon-yahanimada aan rabnaa waa mid aqoontaynu sheegaynay wadata oo ah inuu kayd aqoomeed leeyahay awood wax xallili karta ama hufi karta inuu leeyahay oo kin soo tilmaamnay leadership attitude inuu leeyahay hogaamin awood hogaamineed laakiin waxay leenahay intaa waxa ula socotaa inuu qudwa noqon karo waa inuu mowqif qof qaadan kara yahay waayo haddaad waxna sheegto laakiin lagu arko marka mushkiladda timaado adoo reerkiina la safan marka gurigu yimaado adoo xantoobinaya dee aqoon-yahanimo ma jirto aqoon-yahanimo ma jirto markaa mawaaqiftii baa la la'yi mar haddii mowqifka la waayana aqoon-yahanimadii ma hayno mawaaqifta ilaahay qur-aanka markuu rasuulka tilmaamaya raggii la socday aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum baa layidhi waxaa lagu yidhi dadkii oo dhan wuu sukun soo urursadaye war cabsada baa la yidhi fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil mawaaqif bay lahaayeen dad baa isa soo urursaday mabaadi'doodii kamay dhaqaajin iyo halkay taagnaayeen ilahayna wuxuu leeyahy falaa takhaafuuhum wakhaafuunii in kuntum mu'miniin war cid kale ha ka cabsanina aniga iga cabsada haddaa mu'min tihiin waxaan leenahay mas-uuliyaddan qofka aqoon-yahankaa ka rabnaa waa inuu danta caamkaa qof ilaalinaya noqdo alwaajib alkifaa'iy diintu waxay ina fartay labay u qaybsantaa wax waa fardu cayn qof walba laga rabo qof walba gaarkiisaa looga rabaa salaadda qofna qof kama tukado qof walba isagaa laga rabaa salaadiisa waxna bulshadu markay isu tagtaa laga rabaa bulshadu markay isu tagto cidda matashaa waa aqoon-yahankeeda waa dadka wax garadka u ah waa dadka indheer garadka u ah indheer garadku hadduu isagu ka seexdo waajib kifaa'igii wixii bulshada laga rabay hadduu isagu ka seexdo oo uu isna xoogsi tago calooshiisa u noolaado reerkooda difaaco inta la ag joogto uun la wado aqoon-yahan maaha kaasi dadku ka mid yihi waxaan leenahay aqoon-yahanku waa saaxibu mabda'in waa hadaf waa nin mabaadi'na rumaysan taargetna leh hadaf u muuqdo raba inuu gaadho ku socda laakiin hadday aqoontu noqoto aqoon caloosha xukunto hadday aqoontu noqoto aqoon jahligu xukumo adoo aqoon-yahana markaad isla soo taagto reerka iyagu wartaa odaygaa ku filan hore loo hayay waxmaad soo kordhin taabkaab cid haysaabaad joogtay oo reerka afkiisa ku hadasha hadday markaa waxaad soo kordhaysay reernimo tahay gelaaga inaad raacataabaa dhaantay oo waxba isku lugoyneen halka kale aqoon baan baranaya waxbaan wadi doonaa qiimo male aqoontu haddaanay midho lahayn wixii laga rabay haddaan laga dhalinaynin qiimo ma leh bal
bale adiga cadaab dheeraaday kugu tahay waayo jaahilka iyo aqoonta qof kale akhrisku si lama cadaabo ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahay dadka ma takliifiyo ma saarin wixii la siiyey mooyaane qofka garaadka badan iyo qofka garaadka yar leh isku wax lama siinin de waa inaan isku xisaab noqonin qofka aqoonta la siiyey qofka jaahilka isku wax lama siinin waa inaan isku xisaab noqonin sidaa uga waxaanu leenahay aqoonyahanku hadduu intii odayada Soomaaliyeed hore hayeen uu hayo waxba mu soo kordhinayo aqoonyahanka Soomaaliyeed hadduu isna 4.5 la soo taagan yahay waxba kale odayadeedii ha loo daayo ay dhahay mid tuulo joogaa neef qalay inta mala leyd gaariya wax soo baxay oo siricid baa ku iman doonta ninbuu yidhi kaan neefka anaa qalaya adigu markaan iibiyaabaha kaa soo saari doona lacagta ku siinaya wixii baa suurtoobi waayey ninkii xoolaha lahaana wayse soo dul taagay warya harageeda inagaga celiya buu yidhi yaa un dib u nooleeyo seedii ka dhiga aqoonyahankeena waxaan leenahay hargeedii ku celiyay joogtaa yaa odayadeedu iskaga celiya seedii ahatee dowladna ma rabne waayo hadduu waxa la wadaa wixii uun yahay waxba kale ma soo kordhin haddaba waxaan leenahay aqoonta waxaan rabnaa inay noqoto xaariskii cuquusha da'yartan ilaalin lahaa ee ka ilaalin lahaa min atalawuth environmentka waxaa laga ilaaliyaa inuu wasakhoobo aadanaha caqligiisana aqoonyahanku wuxuu ka ilaaliyaa inuu wasakhoobo aadanaha caqligiisa bulshadii aad la noolay ciddii ilaalin lahayd ee ka ilaalin lahayd talwiidka wasakhda dabadaha kaga imanaysa iyo dhaqanadoodii hore waa isaga aqoonyahanku waa inuu noqdaa misfaa bay idhahdaa weelkan aynu wax ku shaandhaysana maxaa tidhahdaa kolle xageegaa shaan baa laga idhaahdaa kan inta wax lagu miiro wax lagu kala miiro aqoonyahanku waa inuu noqdaa wixii wax miirayey ee miidana dadka u sii daynayay qashinkana ka reebayay laakiin haddaad adna waxba sii daynayso dee waxbaba ma tihid wuxuu ilaalinayaa markaa waxaan leenahay taxadiyaad ama challenges gudeed iyo mid dabadeedba waa jiraan challenges gudeed baa jiro oo ah challenge-ka qabiilka challenges gudeed baa jiro oo ah challenge-ka mukhadaraadka challenges gudeed baa jiro oo ah challenge-ka aqoon darrida waxaasoo dhammi dadka Soomaaliyeed oo wada haystaan dhibaatooyin qabiilku sababay baa haysta oo qaabka qabiilka loogu soo koray ah waxa uu dheer mukhadaraad balwad ku soo korodhay qaad leh khamri leh xashiishad leh qurun oo dhan leh uu soo kordhay tiradiisu intii hore waa ka badatay awal dhowr laan loobar ayaa waddanka iman jiray dhowr laan loobar iminkana dee waxay maraysaa tareelayaal iyo dayuurado in lagu guro waxaan tareelayaasha iyo dayuuradaha lagu guraya market buu leeyahay haddii marketku uu engego ma jiri jireen tareelayaashan iyo waxa kale markuu marketku yaraa 3 laan loobar iyo 2 laan loobar bay idan xajmiga balwadeeda waddanka waxaad ka garan kartaa xajmiga balwada soo galaysa inta ay leeg tahay ayaa waxay tusaale u tahay bulshadu siday maanta balwad ku tahay waxa kaloo jira ضعف الوعي العام أقول درجود أقول درج دينيد باشرته ومرة كقاركود أقويها كباها يستطاع هذا الدين هذا جاهل كان قطود أقويها المتين هذا العالم وحيدك وفي عناية الله إلى الله هذا أديك وقت كم مرة تهم هذا العالم وهي عدوى لبينا إلى شنكرته وحبات ربنا آدم قام وقالين الله صنعه وحكم ده دين تيس وعقائد يوح الربيسية أخلاقيات كيس ومدو values إلى ذا قيم كاي وضعتها إلى ذا وحكم إذا أفافك ومدو أفك إلى ذا سومالك ما أنت واحد مدين أفك إذا كسفارش والله هذا يكتاه حيسي هذا مالها اللي قبل شيء وحيسي واحد مدين لندن شوفته حيسي سكين في إنجليزي كوكوري من قال والله مساعدة ما لقيت يا بيقول شيء يعني Soomaaliyeed baa dhoofay baa raacdo Soomaalida ku badnayd dabeetana hees la tumayo maqlay baadiyada uu ka yimid marka wuxuu war mana waa la saacada baa laga heesaya waayo dawxi salaahu baadiyini baa hees muqtaalahay
cadan baa hubayoodii laga qaadi doonaa baanu ku talagelin. su-aasha isweydiinta le waxay tahay nolosheennii oo dhan baa isbedeshay, afkeenniiba xataa dhimasho kusii dhadhow oo ka baxaya oo ku hadalkiisii uu sii yaraanaya. ammaan bay noqotay qofku inuu afafka ajanabiga inuu ku hadlaba ammaan soo baxday. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya in allaha yabcatu lihadihi lumma cala ra'si kulli 100 sana man yujadidu laha diinaha. ilaahay ummadatan boqolkii sanaba wuxuu soo saaraa mid diinteeda u cusbooneeya. diintu see loo cusboonaysiinayaa bay isweydiiyaan. diintu waa waxyigii xagga samada ka soo degay, waa wixii nebi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam. iyada cusboonaysiinteedu waa wixii dusha kaga dhacay oo laga rogo. waxay dhahdaan laba wax baa jira oo labaduba cusboonaysiin u baahan. aqoonta aadanaha caadiga aynu wadnay tan aynu jaamacadka u furannay cusboonaysiin bay u baahan tahay, laakiin iyada cusboonaysiinteedu waa maxay? waa wax cusub oo lagu biiriyo. iyada cusboonaysiinteedu waa wax cusub oo lagu biiriyo. markay diinta joogto cusboonaysiinteeduna waa waxa cusub oo laga hufo. diintu asal bay leedahay, waa asalkii in lagu celiyo. fahamkeedu inuu ku noqdo kay saxaabadu fahamsanaayeen, caqiidadeedu inay noqoto caqiidadii nebi maxamed wakhtigiisii la haystay, akhlaaqdeedu inay noqoto akhlaaqdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii joogtay. axad alculamaa aw axad alkutaab, ibraahim asakraan in la yidhaahdo kaatiba muslima nimankan sacuudiga hadda xidhxidhay ka mid ah, ayaa wuxuu leeyahay kitaab la yidhahdo thaqaafat lghaalib. dowladaha xoog bata thaqaafada, yani wuxuu tilmaamaya culjarka dadka xoog bata inuu culjarkoodu inta badan xagga sare soo maro. oo muslimiintu waagay xooganaayeen dee yurub ninku inuu af carabi qoro ammaan bay ahaan jirtay. shaadh inuu qaato ama maro letriska carabiga ay ku qorayeen alifbaadu ku qorqorantaha baa ammaan ahaan jirtay. halkan iminka abc-ga laynoogu soo qorqoro saasay ahaan jirtay. gadhka in lala baxo maro fadfaada la qaato, khamiisoo kale la xidho, aqoon-yahanimay sheegi jirtay. halka iminka tayga iyo uu sheego suud markaad xidhato la odhanayo ninkani waa aqoon-yahan. waagaa wuxuu ahaa ninka khamiis xidhay garh weyn la baxa, dhulkii cilmigu ka yimi bay kaasaa khibradda iyo aqoonta tilmaamaya. waa alvaro, waa aqoon-yahanadoodii reer galbeedka nin qorayo calaacalayoo leh dadka maanta yurub jooga wax waraaq af carabiya qori kara aad baad u helaysaa buu leeyahy, laakiin hal waraaqa oo laatiina cid qori karta heli maysid. yacni waxay udaba ku yihiin buu leeyahy luga alcarabiya, iyagoo reer yuruba afkoodii laatiinka ahaana ma qori karayaan buu ku calacalay. waa halka maanta ina haysata wadaad af carabi wax ku qori kara ama nin kaleo ingiriisi ku qori kara waad helaysaa, laakiin waraaq af soomaaliya haddaad aragto waa jacbur. wuxuu ninkaasi qoraya thaqaafat lghaalib bugiisaasi waxa uu ku tilmaamaya, wuxuu u bixiyey altajdiid tacakusiy. cusboonaysiinta iska soo horjeeda buu odhanaya fii umuuri dunya wadiin. arrimaha diinta buu leeyahy marka la cusboonaysiinayo waxa dambaa laga hufayo, wixii horaa loo noqdaa. waxaa la isweydiiya waxan wixii ilaahay yidhi ma yihi, wixii nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam ma yahay, dabeetana kaasaa lagu dhaqmaa. aqoontan sayniska iyo waxaan kale ku saabsana cusubna waxaa la yidhaahdaa maxaa cusube soo kordhay. adigu buugganaad haysato waa edishanadii koowaade dib baa loo rifays gareeyo, wax cusub baa lagu daray, waxbaa soo kordhay. qalab iyo aqoon iyo wax walba way soo kordhaan. laba tusaaluu soo qaadanaya markaa isagu buuggiisa. wuxuu leeyahy waxaan tusaale idiin siinayaa imaamu shaaficiy iyo albert einstein buu odhanaya. imaamu shaaficiy usuululfiqiga markuu qorayay waxa uu waday sidii dadka loogu celin lahaa fahamkii hore. marka wuxuu ka hufayaa wixii diinta ku soo kordhay
wuxuu rabaa khatul bidaaya inuu dadka geeyo halkii wax ka soo bilaabmeen wixii dheeraadkaana uu ka hufo. Albert Einstein waa oday yahuudiya oo ay ku tilmaamaan aqoontan fiisikiska ninkii ugu weynaayee dunida soo mara loo tilmaamo, ama la yidhaahdo aqoon-yahankii qarniga 20aad ugu weynaaye soo mara buu ahaa bay yidhaahdaan. yani say u buunbuuninayeen xataa markuu dhintay waxay yidhaahdeen ninkan madaxiisa ha la qalo, malaa intelligencekiisu ka bini aadamka uu ka buuran yahay, ha la qalo madaxiisa. laakiin markay maskaxdiisii gaadheen ee miisaameen waxaabay noqotay miisaanada yaryar bay yidhaahdeen, may noqonin dadka average-kiiba ma dhaafsiisna haddaanu kaba hoosaynin bay noqdeen markii ay maskaxdiisa miisaamayeen. aqoon-yahan buu ahaa caana oo la yaqaano, xataa nolosha caadiga ah nimaan dhib badnayn buu ahaa. israa'iil markii madaxweynahoodii koowaad dhintay bay u yeedheen oo la yidhi madaxweyne noqo, basifisan buu aaminsana wuu diiday dadku inay nabadgelyo ku wada noolaadaan. Albert Einstein waa nin aad u caana. maxaa caan bixiyey? wixii la hayuu dabarogay. saynisku halkuu taagnaa, gaar ahaan labadiisii nadariyadood E=mc², nadariyadii ahayd, iyo gravitational law, labadiisa nadariyadood waxay ra'sun calaa caqab ka dhigeen xataa muctaqadaadkii dunidu siday u dhisantay laga haystay. oo maalan dunida waxay rumaysnaayeen kuwooda materialiska inay weligeed soo jirtay jirina doonto, laakiin nadariyadiisu waxay caddaynaysaa inaanay weligeed soo jirin, inay wakhti bilaabantay. inkastoo isaguba markuu masaladaa arkay uu ka yaro warwareegay, laakiin aqoonta markay iska daba timi waxay noqotay qasab in la qaato. isagu sallaxasation buu sameeyey oo wuxuu constant buu samaystay, uu ku sallaxday sidii thaabit looga dhigi lahaa. laakiin aqoon-yahano ka dambeeyey markay dib u baadheen waxaa caddaatay inay dunidu faafayso, tatawasac, ballaadhanayso. hadduu faafayana mar buu barbilow lahaa weeyaan, meel buu ka soo bilaabay. idan waxaan leenahay Albert Einstein wuxuu dabagediyey nadariyaadkii dunida lagu hayay ee cilmiga wakhtigaa joogay. wuxuu ku ammaanayay markaa inuu wixii hore burburiyey oo wax cusub dadka baray, ayaa ammaantiisu tahay. walidaalika baa caaisha radia allahu canha nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam laba xadiis bay ka warinaysaa, labaduba saxiixu muslimka ku yaaliin. labaduba aragtidan aynu sheegayna sheegayaan. mid intuu nebigu madiine yimi ayuu iyadoo timir la tallaalaya ayuu yidhi maxaa ku falaysaa? markaasay yidhaahdeen waanay baxaynin. war haddaa iska daysaan malaa waa bixi doontaa buu yidhi. nebigu beeraha waxba kama aqoon, beeralayna ma ahayn, laakiin ra'yigiisu muu sheegay, isaga say ula muuqatay. geetimireedkuna lab iyo dhadig buu leeyo de waa laysku tallaalaa, haddaan laysku tallaalin ma dhalo. dabeetana waxay idhahdeen dee nebigii baaba yidhi iska daayeen. sanadkii dabay bixiba weyday, timirtii baa la waayay. war timirtii maxaa dhacay? waxay idhaahdeen de waa kii nebigu sidaa yidhi markii la iska daayena saan bay soo baxday. wuxuu ku yidhi nebigu antum aclamu biamri dunyaakum, waar anigu malahaygun baan idiin sheegay de arrinkiina adduun idinkaa iga yaqaana. masaladu maaha masalo waxyi igu soo degay maaha, ee waa uun ra'yigayga aniga siday ila muuqatay. arrinkiina adduunya idinkaa iga yaqaan buu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. idan masalada sayniska ku saabsan ama aqoonta noocaa ku saabsan cusboonaysiin bay mar kasta u baahan tahay. ama aqoonta diinta ku saabsan, caaisha xadiis labaad warinayso saxiix muslimku isna ku yaala, man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad. diinka iyagaasi cidda ku soo kordhisa waxaan ka mid ahayn wuxuu yahay maxay? marduud, waa lagu celinaya. maanta cindana waxaad moodaa arrinta inaynu mackuus ka dhignay. innagu aqoonta bini aadamkee maanta la wado waxbaba kuma daro, waynu qallidanaa. marakis ilbaxi ma lihin wax cusub soo saara. wixii ay inoo sheegaan un baynu iska daba soconnaa. diintase waxaynu rabnaa inaynu ra'yigeena wada sheegno, sidan baa la yidhi, kan baa la yidhi, cid waliba waa ka hadlaysaa. marka arrinta waynu dabagedinay. waxay diinka inaynu siisa u dayno nidhaahno
ilaahay rasuulkiisu saasay yidhaahdeen. waxaanse bini aadamka inaynu wax ku dari karno oo aqoon keeni karno. inaga waxaan rabnaa diinkana inaynu bidcayno, sayniskana inaynu qallidanno, aynu waxbaba ku darin. kii ay ahayd inaynu wax ku darro macnaheedu waxa weeye caqligii sii la rabay wamaynan shaqaysiinin, halkii la rabay in wax lagu biiriyo kumaynan biirin. laakiin halkii la yidhi waxba ha ku darina ayaynu wax ku dar la daba soconnaa. walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sii digaya waxaa ka mid ahaa latatabicanna sanana man qablakum xadwa alqada bilqada xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh. wuxuu nabigu yidhi kuwaa hore masiirkooda waxa u raacaysaan, yacni halkay mareenba waa maraysaan. xataa hadday god masalugalay galaan, misacagaleeba masalugalay godkeed hadday galaan waa ka dabagelaysaan. god masacagale ammaan ma aha, meel la galana ma aha. wuxuu nebigu tusaalaha ugu qabtay maxsuuska ee la dareemi karo. wuxuu ugu tilmaamayaa waxaan macna samaynayn xataa hadday sameeyaan intaad jabtaan baa iska daba soconaysaa. su-aal bay weydiiyeen oo ay yidhaahdeen faris waruum, ilaahay rasuulkiisa ma beershiye iyo romaniskaba waa labadii dowladood ee waaweynay markaa jiray. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa kale, ha iyagaa dabagelaysa. axaadiid kalena waxay tilmaamaysaa alyahuud wanasaara. alxaafid ibnu xajar baa wuxuu leeyahay marka laga warramayo buu yidhi fii sunani alxukmi wa siyaasati alumam waa faris waruum. marka laga warramayo buu yidhi fii shu'uuni diinna iyo bidacya waxa kanna waa alyahuud wanasaara waxay samayn jireen. calaa kullin in dadka wax laga qaato oo dunida aynu wax ka qaadanaa wax xun maaha, laakiin waynaynu garanaynaa waxaynu ka qaadanaynaa wuxuu yihi. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa anugu waxaan la mid ahay sidii guri la dhisay oo la fiicnaysiiyey oo meel qudhoo xabad labana ama jaajuri gashaa ka bannaantay oo ninku intuu ku wareego uu leeyahay talow halkan ama xabad jaajuro la geliyo way fiicnaan lahayde. fa ana labina buu nebigu yidhi, anigaa aa labnadii u dambaysay. wuxuu kaloo tilmaamaya inamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq. macnaheedu waxa weeyaan wax soo jireenoo fiican oo bini aadamku leeyahay waa jirtaa, wax soo jireena oo fiican. waa ka nebiguba tilmaamaya min kalaami nubuwati lula inuu ka mid yahay maxay idaa lam tastaxyi fasnac maa shita buu nebigu yidhi waxay ka mid tahay maxay wararkii ambiyadii hore ka tageen. aadanuhu wanaaguu kala dhexlayay way jirtaa oo habboon in la ilaaliyo. waxaa kaloo jira wuxuu ku dardaray oo aan khayr ku jirin oo raba in laga tago. marka aqoon-yahanku waa qofka laga rabo markaa ummadda inuu u kala hufo waxaas. fii qadaaya siyaasa maxaa diinta waafaqsan maxaan waafaqsanayn, fii qadaaya aliqtisaad maxaa waafaqsan maxaan waafaqsanayn, fii shu'uuni alijtimaaciya maxaa waafaqsan maxaan waafaqsanayn. ciddii la rabay inay hufto oo wixii tajribo bini aadama waxtarlena soo daysa, wixii diintii rabbi soo dejiyey khilaafsan ee aan waxtarka lahaynna dib u celisa oo ka reebta. saa awgeed inta badan bay yidhaahdaan alwaaqicu waalwaajibu way iskhilaafsan yihiin. maxaa ina saaran iyo maxaa suurtagale hadda jira inta badan way iskhilaafsan yihiin. aqoon-yahanka ama faqiih qofka ahi waa qofka labadaa iswaafajiya bay yidhahdeen. waa qofka isku dayaya waaqaca nololeedee lagu nooliyey inuu hufi karo oo uu waafajin karo maxay mabaadi'da iyo caqaa'idda iyo waxa uu rumaysan yahay. ayuha alaxiba, warkaygu waa tilmaam se ma badinayo. wuxuu ku kooban yahay qofka aqoon-yahankaa waxaynu ka rabnaa inuu diintiisa yaqaano, inuu diintiisa yaqaano. inuu diintiisa yaqaanaa ma aha waxaad odayadiiyo habra ka maqashay iyo suuqa wixii lagu hayay. dhallinyaro badan oo akademig
waxay meelaha ka maqmaqleen iyo waxay reeraheennii ka soo gaadheen bay diinta u haystaan markaa wuxuu isleeyahay qof waliba diinta waa taqaanaa waxba kama jiraan sida aad ugu baahan tahay science courseskaga inaad qaadato ama human science-kaasi aad course-ka u galaysa u qaadato ayay diintuna u baahan tahay inaad ogaato ilaahay iyo rasuulkiisu waxay yidhaahdeen aqoonyahan badan baan weysadu ka asixin soomaalida ama salaadoodu asixin waana ceeb qof 20 sano 30 sano wax dhiganayay oo weli masaladiisu ay joogto ee weysadu iyo salaadu inay saxdo waa ceeb runtii in qofku specialization sameeya waa mar dambe laakiin aqoon baa jirta basic oo qof kastoo bini aadama loo baahan yahay inuu garto diintaadu waa inaad ku biirtaa aqoonta basiga waxaa fardul cayn kuga ah inaad garan karta in maanta cid loo daba fadhiyo masaa'ilka qaarkood may ahayn qof waliba diinta waxa kaga waajiba waa inuu gartaa maxaa ku saaran adiga haddaad reer leedahay diintu waxay reerka ka qabto dhan waa inaad taqaanaa haddaad baayac mushtartay baayac mushtarka waxa xalaashiya wax xaaraanta waa inaad taqaanaa haddaad tukanayso salaada waxa ku asaxdiya waxa kale waa inaad taqaanaa haddaad soomayso waxay kugu asaxdiya waxa kale waa waxaasi maaha cilmi cid loo daba fadhiisto waa cilmi baysigiisa oo u baahan qof waliba takhasuskiisa inuu garto marka koowaad marka labaadna halka aad ummadda ugu qunto xaaraanteeda iyo xalaasheeda waa inaad kala ogtay dhaqaalaad u baratay ummadda waa inaad garanaysaa dhaqaalaha maxaa diinta ku bannaan iyo maxaan ku bannaanayn maxaa horumarkeena iyo maxaan keenaynin fiildkaaga wixii ku sugan waayo haddii kale wax xufi kari maysid wax toosin kari maysid conventional economics qura haddaad dhigato dhaqaalaha reer galbeed qura haddaad dhigato dee waxba soo kordhi kari maysid way adkaanaysaa waa inaad og tahay waxaad adigu haysatayna wuxuu yahay kii alla kuu tilmaamay wuxuu yahay waa inaad og tahay si awgeed waxaynu leenahay aqoon baynu u baahanay inaynu yeelanno weliba waan ku celinayaaye dhalintan jaamacaadka dhigata kuliyaadka aan sharciga ahayn sharciga idinka inta idinkaga waajibtay waa inaad garataan waa inaynu aqoon diimeed yeelannaa ta kale aynu baranaynana waa inaynu sugnaa aqoontaasi waa wax fiican in la helo aqoontu aad mumaarasaysaana waxay hagaajisaa inaad hadhow wax xufi karto oo qofku markuu miisaankii helay wax ku miisaamayay waxa fududaanaya markaa inuu hufi karo oo kala hagaajin karo oo kala haadin karo oo garan karo waxeeda saxa iyo waxeeda xun culture-ka ummadda inaad kala haadin karto oo dhaqamada waxaynu u baahanay inaynu ka guurro iyo waxaynu u baahanay inaynu ku mintidno inaynu kala garan karno intaa kadibna waxaynu leenahay attitude-ka inaad dadka hogaamin karta waa inaad yeelataa qodobkaasi waa macrifo wixii ku saabsanaa qodobka labaadna waa inaad qof mawaaqif leh noqotaa qof mowqif leh hoggaanka dunida la sheegaa waa nin maalin meel ay adkayd istaagay haddaad geesi maqasho dee saacaduu la kacay waa nin isagu saacaddaa sugmay ciidanku saacaduu jabay ayuunbuu u dhabar adayga markaasaynu dhaha ninkaa hebel waa geesi geesinimadu waa saacaddaa waa mowqif qof qaatay marka waa inaynu mawaaqif yeelana waa inaynan imaca noqonin xagga dadku jira un qof jira hadday qayeelaan la qayeela hadday wax boobaan la booba xaggii loo socdaba qof isaga socda waa inaanu noqonin aqoontu waa inay qiimo samaysaa si awgeed waa inaynu mawaaqif yeelanaa mawaaqiftaasi waxay keensanaysaa inaynu bulshada qudwo u noqonno dad ay ku dayan karaan inaynu noqonno qodobkii ugu dambeeya aan tilmaamayna waa inaynu garannaa maxaynu cusboonaysiinaynaa sisaynu u cusboonaysiinaynaa diinta cusboonaysiinteedu waa bidca iyo dheeha sare oo laga tuuro oo la reebo intii lubbul mawduuca ahayd wixii waxyiga saafiga ahaa ee xagga alle ka yimi wixii khuraafaadkaana laga reebo diinta cusboonaysiinteedu waa taa tajribada bini aadamka cusboonaysiinteeduna waa in la ziyaadiyo wax lagu kordhiyo aqoon cusub in lagu kordhiyo waa kaasi idan waxaan idin tilmaamayaa waajibka idin sugaya waa kaasi
ee ma aha dhallinyarada in ka mida waxa maskaxdooda ku barogaram karaysa waxbaro si aad shaqo fiican u hesho gabadh qurux badanna u guursan kartid meel la u geli kartid waa hunguri intaas xooluhuba intaa waa yaqaaneen intaas waa intii hunguriga maaha in loo noolaado intii loo noolaanayo waa mabaadidan aynu ka warramayno ee raganimadu iyo ninnimada iyo gabadhnimadu waxay ku jirtaa inaad booskan qaadataan laakiin in waxbarashadiinna iyo daalkiinna oo dhammi maxaa la cunaa isugu tago maaha wax u cuntama qof bini aadama oo nool wax u cuntama maaha ee waa in hankeennu intaa uu ka weynaadaa oo noqdaa ummaddan saynu indho ugu noqon lahayn ummaddan saynu u bedeli lahayn ummad kasta cid baa beddeshay yurub inay soo guurto u soo guurto technology iyo aqoon waxa ka horeeyay enlightenment groupkii falsafatu tanwiir kuwii isku dayayay in khuraafada iyo waxaan dadka cusleeyay ka radiyaan laakiin iyagu laba isku radiyeenoo diin baatilana way radiyeen khuraafo kaloo ay haysteenna way radiyeen adiga iyaak inaad diin saxa radido moodid enlightenmentkaagu adiga inuu yahay inaad waxyiga tuurtid innaga enlightenmentkeenu waxa weeyaan khuraafada inaynu ka faydno waxyiga kaasaa enlightenmentkeena innaga waxaynu u baahanay inaynu samayno kadibna ummaddu horumar bay bilaabaysaa horumar kastana cid unbaa jaajuurka koowaad dhigta ka labaad cid saarta la waayi maayo laakiin haddii ninba nin ku halleeyo halkeenaynu fadhiyayna sala allahu calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin